wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa saamaynta ay baraha bulshada ku leeyihiin nolosha iyo dhaqanka bulshada. waxaa ka qayb galaya Shiino Cule iyo Cabdiqaadir Cali Boos oo labaduba ka mid ah dadka ugu caansan ee baraha bulshada ku leh bogaga isla markaana mararka qaar live ka soo gala ka tala bixiya kana fakar dhiibta hadba waxyaabaha cusub ee socda. waa in salaamo marka hore kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. waxaanu ku eegaynaa maxaa laga dhaxlay baraha bulshada, faa'iido mise khasaare. aan ku hormaro Shiino. waxaa laga helay faa'iido badan baa laga helay oo ay ugu horeyso inaa dadkii ay isku bartaan, inay ku wada xiriiraan, in dad badan Soomaaliyeed ay ka soo baxaan oo dad famous caana ay noqdaan. su'aale hadda marka aan u soo qaato aniga booska Facebook horta cidinama aqoon xaafadda una ka yaqaanay haddana dad caan aan nahay, marka waa faa'iidada ugu weyn oo laga helay weey. hay Cabdiqaadir. والله شينا walaalkay waa sax waa runtiis laakiin waa kaga soo horjeeda fikirkiisa ah in faa'iidooyin badan laga helay sababtoo qasaaraha lixaad kale oo bulshada Soomaaliyeed ay ka dhaxleen ayaa ka badan faa'iidada uu Shiina ka dhawaajiyay. waxaana qabaa aniga dhowr qodob oo ah nuuc ka karo qasaaraha Facebook oo ka mid yihiin in qof magacaada ama sawirkaaga uu iska isticmaalo oo saameyn ay kugu yeelato qoraalkaaga maadaama qofka magacaada uu wato in wax dhaqan iyo diin aanan u lahayn innaga oo laga yaabo qof inuu si bareer ah ama nolosha caadiga ah uu ku dhiirado in Facebook marka la joogo ay tahay wax normal ah, in dhaawacyo dhiigag dhibaatooyin badan aan ka aragno daawano aan daawo lahayn haddii teknolojiyadan casriga ah aysan jiri lahayn iyo kuwo badan oo kale waa na soo cuska doona. hayasheena faa'iidada in adiga aad caan noqotay Kasokow iyo Cabdiqaadir maxaa kaloo ka mid ah faa'iidada bulshada ay ka dhaxashay iyo dadka isticmaala? waxaa ka mid ah in dadkii ay ku wada xiriirayaan, in qofku wixii barnaamijkii ama fariintii uu rabay inuu dadka la wadaago inuu gaarsiin karo. dabcan khasaare waa jirtaa laakiin waxaan aaminsanahay inay faa'iidadu ka badan tahay. qofku sida wanaagsan buu u isticmaali karaa. hadda haddaan u baahdo anigu oo rabo ummadda Soomaaliyeed inaan wax fiican u sheego oo aan isleeyahay danaa ugu jirta, haddii ahaan lahayd dalkooda iyo dibdhiskiisa, haddii ahaan lahayd nabadgelyada, haddii ahaan lahayd midnimadooda, haddaan leef soo gelayaa daqiiqad bay ugu qaadanaysaa 2,000-3,000 oo qof aad toos ii daawanaya videoga waxaa laga yaabaa 50,000 inay daawato. marka dadkii fariinteedii waa gaarsiin karaa. haddii aan laakiin aanan haysan baraha bulshada inaan VOA bariyo noqon lahayd, VOA na waxaa laga yaabaa inaysan taleefanka waxa weeye jaan fiican siiseenba. haye boos. intuu ka dhawaajiyey waxaa kaloo ku darsan lahaa Shiina dhalinyaradii mustaqbalka wanaagsan lahayd burburkii dhashay kadib ama kuwii markaa caqliyeednaa waqtigii dawladda siyaad bare maanta waxbarasho iyo mustaqbalkoodii futurekoodii waqtiga ay ku dhumi lahaayeen waxaa moodaa in social media ay geliyeen taasoo mugdi weyn gelinaysa futurekooda. waxaa dareemaya in siyaasadii dalka kala tagtay ee kala irdhowday halkii dhalinyarada isku duubnaan lahaayeen maanta ay baraha bulshada ku kala qaybsameen oo kala arki duwan yihiin oo gurubyo badan u kala baxsan yihiin. in waxaa kala arkaya xeerka qoysaska ama qoysaskoo kale in hablihii asturnaa ama raggii iyo hablihii ama guurkii aad moodaa dadkii lamaanihii isqabay muddo dheer markay kala tegayaan in 5 qaarad oo dunida laga ogyahay sababta ay u kala tageen khilaafkoodii wixii dhamaa halkaas ay kusoo bandhigayaan. waxaa kaloo jirta in uu sii laba jibaarmay khatartii tahriibka maadaama dhalinyaradii America iyo Europe iyo Australia joogtay ee si sahlan sawirro usoo dhigayaan halkay joogaan Snapchat iyo waxyaabahaas oo kale kuwii dhalinta ee dalka joogay difaaci lahaa ama u dhiman lahaa ama xataa wax ku baran lahaa oo dalka difaaci lahaa inay kaga dayayaan baraha bulshada oo aan jirin waqtigii baraha bulshada ka hor in ay yaree tahriibka. marka laysku beego baraha bulshada waqtigii ay ugu badno 10 sano ugu dambeysay sidii loo tahriibay waxaan aaminsanahay in aniga kaalin weyn ay ku leeyihiin baraha bulshada aan noqoto Snapchat ama Facebook ama Twitter ama noocyada kala duwan ama meesha doontaba. hayshino sax maaha in qoysas badan ay Facebook ama baraha bulshada ay ku burburaan. waa dhici kartaa haddii hal qoys iyo 2 qoys oo iskoodaba markoodii hore aan maaragtay ula buuca isu kutubayay inay ku kala tagaan, laakiin waxa ka badan inta iska hesha inta guri oo Facebook ka dhismay 2 qof oo halkaa iska barto oo iska guursada. Falastiin ay waagi hore waxaa dhici jirtay gabadhu markay guur weydo heeran bay noqon jirtay, magaalo kale gaari u raaci jirtay ama gobol kale oo Soomaaliyeed bay tagi jirtay. hadda alxamdulillah gabar heermaysa lama hayo. gabadha haddii xoogaa suuqa ka xumaado 2 sawir oo qurux badan bay soo gelaysaa, Facebookeeda soo dhigaysaa, halkaas kumaankum raga ka arkayaan, calafkeeda halkaa maartay ka helaysaa. nimankana sidaas si lamida nin damo heermaya male. marka dadka Soomaaliyeed oo dhalinyarada Soomaaliya jooga laftigoodu waa ku faa'iideeno
dadkii haddaysan camal lahayn maxay qaban lahaayeen ama waxbay dhici lahaayeen ama iyaga asdili lahaa. hadda Facebook bay ku mashquulsan yihiin. waxaa arkaysaa dhalinyaro afara oo meel wada fadhiya oo qof la hadleen oo qof walbaa mobilkiisa ku jiro iska qoslayo faraxsan yahay fiidkii marka la gaarana uu iska seexanayo. haddii uusan Facebooka haysan ama baraha bulshada uusan haysan waxa weeye uu fikri lahaa kabacdi hadaan maartay aan fiicnayn buu ka duuli lahaa. marka faa'iidada bahalka badan khasaaradu waa yar yahay. hay Cabdiqaadir ma aragtaa in faa'iidadu ay badan tahay khasaaruhuna yar yahay? faa'iidada wax dhibaato ma keento laakiin aniga khasaarahan ka ordaa waxaan aniga jeclaan lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed in aan hal eray u sheego ama iga dhaxlaan baraha bulshada horta waa sax sida Falastiin ka dhawaajisay way jiri doonaan Soomaaliduna way jiri doontaa marka habka ugu wanaagsan oo la soo jaan qaadi kara waxay la tahay in baraha bulshada adduunka inta dawlad ay jirto waa laga isticmaalaa laakiin annaga aan noqono dad educated ah oo wax bartay oo dhinaca wanaagsan uun kaga faa'iideeya bulshadooda oo waxaa laga maarmi karaa baraha bulshada sidoo kale waa dareemi karaa in faa'iidooyin ay jiraan inkastoo aniga khasaaraha ila badan yahay haddana waxaan jeclaan lahaa in laga gudbo arrimaha dhibaatooyinka dhaqan xumada iyo waxyaaba diinta dhaawacayo iyo qofnimadaada iyo mustaqbalkaa inaad ilaashatid oo aad dhanka wanaagsan baraha bulshada xoogga saartid. aada u mahadsantihiin Shiino Cule iyo Cabdiqaadir Boos. aad iyo aad baa Falastiin ay u mahadsan tahay waana kaaga mahadcelinaynaa bahda VOA iyo adigaba bulshada qaaliga inta ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban oo ay ka qayb galayeen Shiino Cule iyo Cabdiqaadir Boos oo labadaba ka mid ah dadka ugu caansan ee baraha bulshada soo geliya fariimaha iyo fikradaha. tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhegaystayaal nabadgelyo.